السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنو ونكسن داوديال meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay geeyiga Soomaaliya wararka degdega ah oo aan idin hayana waxa kamida hubkii ugu cuslaa oo ay si gaar ah u leedahay Djibouti oo caawa lagu arkay deegaanka Habaas iyo deegaanka Bolol beesha Ciise oo la sheegay inay qarisay in hubkaasi ay ka soo gadatay dawladda Djibouti hadaba waxaan ku soo gudbin doonaa muuqaal aan helay codad iyo waraysiyo dhexmaray sargaar ka tirsan Djibouti iyo rag kamida beesha Ciise waxaan kale ku soo gudbin doonaa suldaanka beesha Samaroon oo madaxweyne Ciro u duubay cod calacal u badnaa oo uu leeyahay beesha Ciise la hadla maadaama xaaladda hadda dagaal ay u eg tahay oo xaaladdu farac ka baxday waxaan kale ku soo gudbin doonaa dagaal caawa laga cabsi qabo banaanka magaalada Ceergaabo iyo dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo halkaasi ka socda qodobadaas iyo waxyaabihii kale ee nagu soo kordha ayaa saaxiibayaalidiin faahfaahin doona ee soo dhawaada haday taa markii kuugu horeysay ku soo biri daraja media waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacnay ee habeen wanaagsan daawade qodobkeena ugu horeeya ayaan ku bilaabayaa taariikhda markii ugu horeysay ayaa hubkii ugu dambeeyay iyo gaadiidkii ugu dambeeyay oo ay farsamaysay dawladda Djibouti waxa lagu arkay meelo kamida gobolka Awdal inta u dhaxaysa tuulada Habaas ilaa Sayla tuulada Ceelgaal ilaa tuulada Habaas ilaa Bolol intaas waxa lagu arkay gaadiid ay si gaar ah u leedahay Djibouti oo ay isticmaalayaan beesha Ciise sheekadu marka waxay noqotay in ay xaaladdu faraha ka baxdo oo hadda hubkii Djibouti markan ay isticmaali doonaan beesha Ciise haddii aad xasuusataan laba maalmood ka hor ayaan daawadayaal idin sheegay in Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha wadanka Djibouti uu qalinka ku duugay oo uu saxiixay sharci dhigaya in hub iyo gaadiid dagaalba gacanta loo geliyo dawladda wadanka waan dhahay maamulka Ciise haddaba fududeynta hubkaas iyo hubkaasi si nabad ah u gaaro gobolka Awdal waxa loo xil saaray taliyaha laanta sirdoonka wadanka Djibouti iyo taliyaha militariga Djibouti nin la yiraahdo Sakriye waxa sidaas si lamida qayb ka rag arinta loo xil saaray wiil u dhalay Ismaaciil Cumar Geelle oo qaabilsan qaybta ciidamada iyo saadka hubka raggaas waxa la sheegay inay shaqada si fiican u bilaabeen oo ay shaqada meel fiican marsiinayaan isla markaana hadda ay ka go'an tahay ayaa la leeyahay inay si degdeg ah hubkaasi u dagaal galo hubka hadaba muxuu iskugu jiraa qoryaha darondooriga u dhaca qoriga la yiraahdo shanshuutarka baastooladaha la yiraahdo Belgiumka bambaanooyinka meelaha fogfog laga hago ee miinooyinka dhulka uga aaso qoriga la yiraahdo M30 qoriga la yiraahdo AK47 oo qoryo badan ah qoriga la yiraahdo lidadka diyaaradaha baasuukayaal yaani ay nooc hub ayaa lagu arkayaa aaga tuulada Habaas Ciise saan hore inay kugu sheegay dhinac walba way ka diyaar garoobeen haday noqoto hubka haday noqoto ciidanka haday noqoto inay dhinac kale isku hubeeyaan Ciisuhu markan dhinac walba waa ay ka diyaar garoobeen oo waxay rabaanba inay qaadaan weerar cir iyo dhul ah oo xoogan kaasi oo ay dad badan aaminsan yihiin inuu noqon doono dabcan mid si weyn xaaladda dab kale ugu sii shida beesha Ciise dad badan waxay aaminsan yihiin inaysan hadda tabar haynin laakiin xaqiiqada marka laga hadlo beesha Ciise hadda sida isku hubaysay hubka ay soo gadanayaan iyo wax walba arinta ku saabsan beesha Ciise si walba way u diyaar garowday khubaro badan ayaa waxay aaminsan yihiin hadii si degdeg ah aan xal looga gaarin oo si degdeg ah xaajada aan loo soo gabagabeyn inay wax badan isbedeli doonaan calaashaan inay la arki doono wax badan oo khaldamay oo inay xaaladdu faraha ka baxdo beesha Ciise oo la arki doono inay qabsatay Boorama inay qabsatay Sayla laakiin aniga ila fiican tala hadaan soo jeediyo in xeerka buuga Ciise la soo bandhigo oo waliba si aqri ku jiro loo xeeriyo waxyaabaha khaladka ah ee ku jira kadibna laga wada hadlo waxyaabaha kale ee dabcan keenaya culeysyada sida in beesha Ciisuhu ay markan sameeyaan hub uruusi iyo inay ciidamo isku dabiridaan iyo inay sameeyaan tababar ciidan raggan way diyaar garoobayaan waxaad moodaa inay la dagaalamayaan dawlad Somaliland waxaan ka cabsi qabaa inay weerar ku qaadaan oo Ciisaha inta la iskala tago Somaliland weerar lagu qaado sababta sida idin leh waxay tahay hadda siday wax ku socdaan Ciisuhu si walba u diyaar garoobay hadda hubkan la leeyahay waxa lagu arkay Habaas
muuqaalo kooban oo aan hubkaa ka helay haddii aan idin tuso caqligiina diidaya sida ay raggaasi diyaar u noqdeen calaashaan ay hadda u diyaar garoobeen oo ay doonayaan inay cir iyo weerar dhul qaadaan ayaa waxay tahay wax inaba aan caadi ahayn oo dabcan xilligan si weyn loo saadaalinaya marka laga hadlayo arrimihii horey u jiray oo xiisada ciisaha iyo samaroonku laftirkoodu waxaa la leeyahay inkastoo dhaqdhaqaaq ciidan ay wadaan oo hub uruusa ay wadaan laftirkoodu haddana samaroonku sida ay ciisuhu Jabuuti garab uga helayaan samaroonku iyana garab fiican dabcan xilligan ma helayaan oo waxaaba laga yaabaaba inay xaaladu ku adkaato oo ay ku qaraaraato haddii aysan xal degdega keenin oo aysan xaajada meel kale u ridin dad badan oo arrimaha la socda ayaa waxay leeyihiin dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waliba isha ku haysa xaaladda halka ka taagan ciisaha iyo samaroonka xiisadooda maadaama ay jirto waxa la leeyahay il gaar ah lagu hayaa waxa sidaas si lamid jira aragtiyo ay soo jeediyeen dadka qaar oo markaasi sheegaya in loo baahan yahay bal in dib u eegis lagu sameeyo habka iyo nidaamka ciisuhu ay tababarka u siinayaan ciidankooda sababtoo ah maalinka ka dambaysa waxaa la arkayaa istiraatiijiyo casri ah oo ah inay hub soo gataan inay tababar soo gataan hadda xasuusataan 5 maalmood ka hor waan u maleynayaa mise 6 maalmood ka hor adawigii la soo dhaafay ka hor waxaan idin sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa ciisuhu ay weerar ku qaadeen tuulo u dhow magaalada Saylac oo waliba hawlgalkaasi qorshisan u dhacay hawlgalka bilow ilaa dhamaad ayaan idin faahfaahiyay hadaan muuqaalada dib u tixraacdaan hawlgalku sidoo ku bilowday iyo sidoo ku dhamaaday waxay ahayd qaab cajiib ah oo beesha ciise ay halkaas hawka u soo abaabushay yaani qaabka u dagaal tagtay qaabka weerarka u qaaday qaabka ay istiraatiijiyad ahaan ay u dagaalantay dhammaan waxa la leeyahay waxay ahayd arrin cajiib ah oo la yaabkeeda leh marka laga hadlayo qodobadii hore dabcan dhinacyadu ay iskugu maandhaafeen ee la xiriira ciisaha nimanka la yiraahdo anu waxba ka cabsi qabaaniyo dharkii iyo dariiskii inay ciidanka Jabuuti intay meel iska dhigeen ay dhar caadi soo gashadeen oo dagaalka ciise ay soo galayaan sababta sida idin leeyahay waxay tahay ciidamada Jabuuti si walba ay u tababaran yihiin waxa laga cabsi qabaa marka ciidanka Jabuuti inay halkaas ka barbar dagaalamaan oo xaaladu ay noqoto mid aan waxba laga qaban karin khubarada arrimaha la socota ayaa aaminsan in xal loo heli karo waxyaabaha la isku hayo laakiin marka hore ay tahay ayaa la leeyahay bal in Jabuuti iyo sidoo kale Somaliland ay wada hadal ka yeeshaan arrimaha hadda taagan isla markaana si hoos loo xaliyo qodobada la isku maandhaafsan yahay oo dad badan aaminsan yihiin in xalkeedu uu dhow yahay marka laga hadlayo waxyaabihii hore la isku hayay si walba ha ahaatee dad badan oo arrimaha la socda ayaa sidoo kale waxay soo jeedinayaan in dawladda dalka Jabuuti ay samayso dadaal walba oo xalkeeda lagu raadinayo xiisada in la damiyo laakiin aysan samaynin wax kale oo ku aadan in ay markaasi hubayaan beesha ciise way qodobadeena kale ayaynu markan fiirinaynaa waxaan eegayaa dhinacaas iyo gobolka Awdal Boorama suldaanka guud ee beesha Samaroon ayaa la soo warinayaa in uu markan codsanayo wada hadal uu la galo beesha ciise cod soconayo ku dhawaad 57 sekin iyo cod kale oo soconaya 1 daqiiqo iyo 30 sekin ayaa loo duubay Cabdiraxmaan Ciro codadkaas ayaan helnay hadaba inkastoo waxyaabo badan ay ku jiraan oo halkan aan kula wadaagi karin hadana codadku dabcan waxay ku tusin karaan ama ay ku sheegi karaan ama ay dabcan ba ka muuqata in suldaanka guud ee beesha Samaroon uu dabcan isdhiibay oo xaaladu ay qoys ka taagan tahay codka waxa ku jira ay oranaya mudane madaxweyne waa inaad xaaladan aadan ka seexan oo ognahay in arrimo kale oo qadiyada kale iyo midnimada aad ku mashquulsan tahay laakiin inaad ka seexan qadiyadan ayaan kugula talinaynaa taas oo dabcan fariin iyo tusaale ka bixinaysa in beesha ciise ay dhanka ciidanka kaga awood badatay beesha Samaroon khubarada arrimaha la socota ayaa waxay leeyihiin waa in si degdeg ah xal looga gaaro qodobada la isku hayo waana in si degdeg ah beesha Samaroon ay daacad uga noqoto in xaaladu aysan faraha ka bixin waxaan la hadlay dhowr xubnood oo mas'uuliyiin ah
oo ka tirsan Somaliland si aan wax uga weydiiyo bal in ay sax yihiin waxyaabaha la soo bandhigay waxayna ii sheegeen qaarkood inay dhab yihiin dhammaan waxyaabaha la soo bandhigay oo ay xaaladdu hadda marayso meel aan waxba laga qaban karin sidaas si lamid ah waxaa jira aragtiyo kala duwan oo ay soo jeediyeen qaar ka mid ah odayaal dhaqameed kuwaas oo la sheegay in ay xaaladda dab kala gelisay isla markaana ay gaarsiisay meel aan waxba laga qaban karin dadka arrimahan la socda oo arrimahan falaqeynaya waxay leeyihiin beesha la yiraahdo Samaroon hadiiba de sida u jilcan tahay oo ay doonayso in aysan dagaal la gelin beesha faca weyn ee Ciise markii horeba ma ahayn ayaa la leeyahay in ay daandaansi iyo xeerka buuga Ciise la joojinaya iyo waxyaabo lacayna in ay dabcan soo dusiyaan ma ahayn ayaa la leeyahay Cabdiqaadir Cabdiraxmaan nin la dhaho oo saraakiisha ciidanka Somaliland kamida ayaa wuxuu ii xaqiijiyay in codkan uu sax yahay ayna raadinayaan cidda codkan bixisay iyo sababta uu u gaaray baraha bulshada qaarkood waxaana arintaasi loo sababeynaya in ay tahay walaaca iyo walbahaarka laga qabo in xilligan la arko isku dhacyo waaweyn oo dhanka ciidamada ah iyo waliba in xaaladdu ay tagto meel aan waxba laga qaban karin si walbaba ha ahaatee khubarada arrimaha la socota ayaa aaminsan in Cabdiraxmaan Cirro uu si degdeg ah uga jawaabo baaqa suldaanka guud ee beesha Samaroon ee ah in xaaladda la qaboojiyo laakiin dad badan waxay aaminsan yihiin haddii xaaladdu sidan ay ku sii socoto inay wax badan khaldami doonaan wax badan isbedeli doonaan lana arki doono isku dhacyo waaweyn oo dhanka ciidamada ah iyo in dagaal halkaas ay ka dhacaan walow dadka arrimahan falanqeeyo ay leeyihiin waa xaajo ugub ah in la arko ugaaskii ama suldaankii beesha Samaroon oo xilligan calacalaya xilli dhowr jeer laga waayay in uu wada hadal iyo wada xaajood xaaladda ku qaboojiyo oo uu dhowr jeer diiday in xaajadan si degdeg ah loo soo gabagabeeyo qodobkan ugu dambeeyana wararka caawa laga helay banaanka magaalada Cerigabo ayaa waxa ay sheegayaan in xiisado culus laga soo warinayo koonfurta iyo waqooyiga magaalada Cerigabo sida ay tilmaamayaan wararka iyo macluumaadka aan helayno 48 saac la soo dhaafay Somaliland iyo Puntland ayaa boqolaal iyo kumanaan ciidamo ah waxa ay dhigeen koonfurta iyo waqooyiga magaalada Cerigabo sidaas la mid ah ciidanka waqooyi bari ayaa dhankooda la soo warinaya inay qaadayaan tallaabooyin dheeraad ah khubarada arrimaha la socota waxay leeyihiin haddii maamulka waqooyi bari uusan ka hortigin daandaansiga hadda muuqda xaaladdu faraha ayay ka bixi doontaa oo waxaa la arki doonaa isku dhacyo waaweyn oo dhanka ciidamada ah iyo arinta oo faraha ka baxday sidaas la mid ah dad aan la hadalnay oo arrimaha la socda waxay leeyihiin waa in si degdeg ah maamulka waqooyi bari uu u qaado tallaabooyin dheeraad ah oo dabcan lagula dagaalamayo cid walba oo lagu eedeynayo ama lagu tuumo inay falalka noocaan ka dambeeyaan dabcan bilihii la soo dhaafay xaaladda marka laga hadlayo waqooyi bari waa ay deganeed oo waxa aad ugu mashquulsanaa arinta Samaroonka iyo Ciisaha laakiin hadda siday hadda wax yihiin dad badan ayaa waxa ay ku sheegayaan in si degdeg ah xaaladdu ay faraha uga sii baxayso oo maalinba maalinka ka dambeeya la arkayo isku dhacyo ciidan iyo in maamulka waqooyi bari uu halkaasi ka gaabiyo marka laga hadlayo arrimaha halka ka taagan xubno saraakiil qaarkood waxay ii sheegeen in ay si weyn ula socdaan dhaqdhaqaaqa ciidanka waqooyi bari laakiin xilligan aysan dooneen inay markaasi xaajada qaboojiyaan oo ay dab ku sii shidaan waxaana 48 saac la soo dhaafay sidaas la mid ah la dareemay dhaqdhaqaaqyada halkaasi ka socda si walbaba ha ahaatee khubaro arrimaha la socota ayaa sidoo kale waxay ku taliyeen in maamulka waqooyi bari uu xaaladda ka faa'iideysto inta lagu mashquulsan yahay arinta la xiriirta Ciisaha iyo sidoo kale Samaroonka waa inay ka faa'iideystaan oo ay xaaladan degdeg u soo farageliyaan isla markaana ay ciidanka Somaliland iyo kuwa Puntland ka saaraan magaaladan istiraatiijiga ah ee la yiraahdo Cerigabo oo dabcan kamid ah magaalooyinka ugu waaweyn waqooyi bari ay sheegtaan Puntland ay sheegtaan cid walbana ay sheegato ay leedahay magaaladan annaga ka talina iyo annaga ka talina laakiin waxa la arki doonaa bilaha soo aadan halka ay gasho gacanta magaalada Cerigabo oo dabcan xilligan loolama xoog leh iyo gacmo kale ay ku mashquulsan yihiin kuwaas oo dabcan xilligan raba inay magaalada Cerigabo gacan bir ah ku dhigaan sida ay tilmaamayaan
wararka iyo macluumaadkan helayno guud ahaan saaxiibayaal wararkeena intaas ay ku dhan yihiin haday tahay markii kuugu horeysay ku soo biir Daraja Media waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno aragtidaada qaybta commentiga inoogu reeb muuqaalkan aad daawanaysa like saar waxaan mar walba idin soo gudbin doonaa xajooyinkii ugu dambeeyay ee Ciisaha iyo Samaroonka iyo xasaradaha ka taagan gobolka oo ay ugu horeyso arinta waqooyi bari soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalka inoo la gareeya waa maasantiin habeen wanaagsan